saxafiyiinta gobolka Gado ururka arrimaha bulshada Gado Civil Society dhalinyarada iyo waliba ganacsatada ayaa maanta waxay isugu yimaadeen kulan tacsi ah kaasi oo loogu tacsiyeynayay naxariista jannaha ka waraabiye wariye Maxamed Cabdikariin Macalin oo ku geeriyooday qaraxii Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho waxaana kulankan tacsida ka hadlay qaar kamid ah saxafiyiinta gobolka Gado gudoomiye ku xigeenka ganacsatada iyo waliba qaar kamid ah Gado Civil Society iyo dhalinyarada waxaana ugu horeynba halkaasi taariikh kooban ka soo jeediyay Maxamed Jaamac Said oo ka warramay taariikh nololeedkii wariye Maxamed Cabdikariin Macalin محمد waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1989 sanad wixii ka dambeeyay waayadii la soo qaxay waxa uu yimid magaalada Balad Xaw waa uu ku koray waxa uu dhintay oo dhanka waxbarashada uu galay dugsigii waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee Buraxaw Primary School محمد dugsiga hoose dhexe halkaas uu ku dhamaystay محمد waxa uu galay macadyo dhowr ah ugu dambeyntiina waxa uu bartay journalism-ka ama maadadan saxaafaddu bartay 2006 baa wuxuu ka howlgalay Mandeq Radio محمد waxa uu guursaday hal xaas oo iminkaba uu ilaahay ka oofsaday waxa iminka uu ka tagay marxuumku waa 3 ilmood inta kadib waxaan halkan kacsi ugu dirayaa eheladii qaraabadii iyo carruurtiisii wariyihii idaacadda Universal ee degmada Balad Xaw walaalayaal halkan waxa isku keenay geeridii ku timid walaalkeen Maxamed Cabdikariin Macalin حقيقي ملوغو يتيرانيو وين السينسا او اندريمينا راجعون بارلماني بهذا الصحافه هذا كيف هذا الشيء وهذا waxaana loo baahan yahay arinta ayada inay ficil loo bedelo ayna ku ekaanin mid cod oo kaliya iyo shucuur maanta bas loo wado Saadiya Xasan on Cable TV Balad Xaw